talooyinka waxay ka bilaabanayaan waxa weeye gabadha iyo wiilka badanaa gabadha jilicsan. waxa weeye gabadhu waxa weeye waa konton waa wiilka barkiis waxyaabo u sheegi karto waxyaabo ay dhihi karto muxuu ahaa ruuxana ay dhibaya muxuu ahaa waysan oran karin oo qalbigeeda soo gaari karaan oo qalbigeeda kama soo bixi karaan. laakiin yaa weeye qofka la doonayo inuu ogaado inuu maqlo inuu garto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا سو دوادا موقال عصب sidoo kale asxaabteena qaaliga taageerayaasheena dhammaan intii magacayga muuqayaga taqaana iyo intii walaalaheena oo aan jecelahay oo asxaabta ah waxaan leenahay soo dhawaada aad baan idin salaameynaa. channelku waa channelkeeni maxay ahayd ma kala dhargeyno aad iyo aad waxaan ku wari aad baa mahadsantiin ii soo dhawaada in leeyahay subscribe-ka like-ta share-ta comment-iga dhac ku siiya inta waa xaqiina aad baan idin salaameynaa. waa video cusub waa mowduuc cusub waxa weeye barnaamij cusub baan wadnaa waxa weeye muxuu noqon karaa waa isleediin idinku laftirkiina niyadda iyo qalbiga iskala hadlaysaan. barnaamijka waxaan ugu magac darnay sidee qoysku u sii jiri karaa qoysaska Soomaaliyeed seebay u sii jiri karaan siday yacni waqtigooda iyo muxuu ahaa jacaylkooda u sii dheeraado. waxaan siinaynaa dhowr talo oo aan badnayn waa in wax ku qaadashaa wax ku ool ah waxa weeye asxaabta muxuu ahaa dee intaan lamaanaha ahayn oo iskaabuladaana maalin bay anfacaysaa. sariirta keligood kasoo kici mayaan maalin unbay lamaana yeelanayaan. inta iskaabulada ah ilaahay kuwa khayr qaba ha siiyo inta lamaanahana ilaahay isku anfaco oo isku xajiyo oo isku barakeeyo. aad iyo aad waxa weeye talooyinka waxay ka bilaabanayaan waxa weeye gabadha iyo wiilka badanaa gabadha jilicsan. waxa weeye gabadhu waxa weeye waa konton waa wiilka barkiis waxyaabo u sheegi karto waxyaabo ay dhihi karto muxuu ahaa ruuxana ay dhibaya muxuu ahaa waysan oran karin oo qalbigeeda soo gaari karaan oo qalbigeeda kama soo bixi karaan. laakiin yaa weeye qofka la doonayo inuu ogaado inuu maqlo inuu garto waxa weeye waa ninka. ilaahay baa isaga wuxuu ka dhigay boqol ilaahay baa feertiisa ka abuuray waxa weeye waa dumar mar walba inaad dhanka jileeca u naxariistid weeye waxa weeye qalbigaaga aad naxariis weyn u gelisid. waa dumar iyadoo dumar haddana waxay tahay xaaskaagii waxay tahay lamaantaadii ilaahay baa isku keen muxuu ahaa sida adiga ku dayactir leedahay haddaan intahay ayay ku dadaalaysaa ubadkaaga iyo gurigaaga oo xafidin exactly dadaalaysaa waxaa dhamaystirtay waxa weeye gabadhu waxbay ismoodsiin kartaa qalad bay niyadeeda ku dhaadhici kartaa waxbaa niyadeeda kusoo warmi karaa waxyaabo badan baa usoo warmi karaa. laakiin waxaa la doonayaa wiilku inuu ka dhaadhiciyo inaysan waxaan waxba ka jirin iyadu ma ahane cid kale aysan jirin. haddaan la kala roonana rumada waxa weeye wiilku wax badan buu qoonsan karaa waxa weeye gabadha kaliya waxa uu qoonsan karaa wuxuu qoonsan karaa guriga xaaladiisu qoonsan karaa guriga muxuu ahaa cuntadiisu qoonsan karaa xaaladda ayadana waxbay qoonsan karaa waxa weeye waa inuu sheego si wanaagsan oo fudud la isaga maxay heeday la isu fahansiiyo maxay heeday wax la isugu sheego la isu dejiyo midba midka kale ka roonaado maxay heeday dan la kala roonaa roomado midba midka kale markuu cadhaysay kale waa inuu dejiyaa. aad iyo aad waxa weeye wiilku markuu guriga imaanayo gabadhiisa wax laga yaabo isagoo daalan inuu yimid waa in oo kulul waa inay dejiso lacala wuxuuba yimidba iyadoo magaalada amaba dadkan muxuu ahaa warxuma tashiilka dee nolosha adduunka saddexeeye lagama waayo. naag intay kuusoo wareegto ama nin intuu kuusoo wareegto naaga isu soo wareega waxaa laga yaabaa in qadadii oo kale oo ninkeedii kululba imanaya moogtay in qadadii oo kale ka habsaamiso inay u sheekayso inuu maxay ahayd waxyaabo badan marka kadib dhacaan. maya waxaa dhici karta mataqaan leeyahay gabadhu waxa weeye ninkeedii oo maqan baa gabadhu soo wareegaysaa
waxay uga sheegaysaa wax run ama been ah mar dhici kara inay run noqdaan marna dhici kara inay been noqdaan laakiin adigoo qofka hadalka kuu sheegay ku xumaynaya oo dareensiinaya in uusan xiriirka labadiina ka dhaxeeya aysan qof idiin soo wareegtay aysan burburin karin qofkaas waxaad ku odhanaysaa walaal waan ogahay waxa aad ii sheegtay oo dhan saygaygaa ii sheegay jacaylkaygaa ii sheegay waxay kula tahay inuu wax iga qariyo mayay waxba iga muuqanin wuu ii warramay wuuna ii sheegay qofka wuu yaabayaa maskaxdaa weynaanaysa wuu naxayaa yacni gurigu kuu faarujinaya marka odagaagii yacni waxaan odagaaga kuumaba sheeginba qofkaana afkiisa ka hormaada maqal intaasaa ku go-an ayadoo intaa ku go-an tahay gabaray waxaa la rabaa inaad qofkaan xumaanta wada oo isku dirka wada waxaa weeye waa dhamaysto horta waxaa weeye gabaray adigoo intaa ku go-an tahay oo waxaa weeye xanaaqsan oo intaa ku go-an tahay oo qofkaan hadalku kuu sheegay cidi kaaga soo hormarin haddana jac ku dhaji qofkan waa inuu sariirkaaga kaa burburin ninkaaga saa ula xisaabtami lahayd adaa yaqaana laakiin waa inaad isdejisaa marka hore xaaladda dejisaa waa inaad ku tiraahdaa qofkan walaal wuu ii sheegay saygayga ii sheegay xaal ama saygaaga muxuu ahaa naag buu halkaa la taagnaa saaka markuu gurigaaga ka baxayo walaal wuu isoo wacay intuusan xafiiska gaarin wuu ii sheegay wuxuu igu yidhi muxuu ahaa heblaaya iga hortimid oo waan salaama baby amaba heblaayaan waddada isku aragnay gurigayna usoo socotaayo saa ogow wuu ii sheegay ama war xataa naagu shukaansanaya hadduu yahay oo naagtan kuusoo sheegayso adoo intaa ku go-an tahay wax uu ninkaaga kuusoo sheegay iska dhig waayo jacaylkaa raagaya habiibi suga xanaaqinaya gabdhaha Soomaaliyeed baan wuxuu sheegaya adna oo ka mid tahay hadalku qaado aan ka mid ah hadalka ninka laftirkiina wuxuu isu sheegay tayo waaya waxa weeye markuu odagaaga yimaado ha ku boodin oo ha dhihin saasaa lii sheegay waxa weeye inta adoo kaa go-an tahay madaxa u gelin waxa weeye dharkaa iska siibo ha nasto qadadaada sida ugu geyn jirtay oo dee muxuu ahaa caadada ahayd ugu gee sida caadada ahayd ugu sheekayn jirtay ugu sheekee markuu soo qubaysto oo sariirtiisa tago oo seexdo galabta oo kale ay tahay saddexda bacd alcasr uu soo kaco intuusan yani shaah iyo casriye yar intuu keentid waxaad tirahdaa hawshaasaan maqlay maxaa ka jira war xataa ninkan hadduu qaldan yahay isagaa isgarawsanaya bal sida degan aad ugu sheegtay eeg bal sida quruxda badan aad ugu sheegtay eeg bal sida macaan aad ugu sheegtay eeg xataa haddii uu ku qiyaamayay waxaa weeye isaga ka qoomamaynaya sidaa tahay oo kalena noqonaya ma garata marka waxaa weeye laakiin miyaa meesha ka baxay waxaa intee qalad baa saxmay waxaa qalad ugu horreeya waxaa meesha ka baxay naagtii isfindiraysay jacbaad ku dhijisay qaladka labaad ninkaagii oo qaldanaa waa toosisay oo waxaa weeye waddaday ku toosisay wadda qurux badan oo fiican buuq kumaada toosin qaylo kumaada toosin waana iyo waxaad ku toosisay muxuu ahaa wadda qurux badan waxaa weeye hablaha Soomaaliyeed taasaan u wadaa ragga Soomaaliyeed baa ay hartay marka intaan ragga Soomaaliyeed u galin Leila hadalku deynaya bal hadda mar bay hadalkii iga boobtay waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed idinku dhagile badan baa leeyahay idinku waxaan ku qaladaad badan baa leeyahay dumarku waxa weeyaan maba qaldamaan baan leeyahay maba qaldamaan because hadday qaldamaan xitaa waxa weeyaan waa dumar waxa weeye adigu boqol la tahay waxaad sheeganaysaa inaa garaadkaagu buuxo ayaduna ay haaf tahay soo maaha aad iyo aad hadda waa inaad ka roonaato khalad kastana waa inaad ugu dulqaadatid qalad kasta ilaahu kun qalada kaaga yimaadaan because waa xaaskaagii waa gabadhaadii waxa weeyaan carruurtaada hooyadood waxa weeyaan gurigaaga hooyadii iftiinkii guriga wixii guriga weeye wixii naftaada iftiiminayay weeye marka waa inaad u dulqaadatid qalad kasta oo kaaga yimaada waa inaad u dulqaadataan xaaskaaga ayadoo qalad kasta kugu samaynaysa halkaa ka dhug because ayadii waa dumar dib baa waxaa laga yaabaa kalsooni iyo jacayl badan inuu sii galo ay ayadu isgarowsatay qaladka iska daa ragga Soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa Leila wada qaladka iska deyso marka waxaan ku isgarowsanaysaa hadda marka iyadoo qalad kugu wada halka ama wax qalooca ay wada halka aad ka dhigto xabiibi iska daa qaladka waa ka inaan ma fiicna gurigeena uma fiicna keena uma fiicna waa kaas iska daa xabiibi siiro qabow siiro macaan siiro naxariis leh hadaa ula hadashid oo waxaan ku aad u jeedid de waxaan ku wax way hagaagayaan laakiin in rago bal waxa ku dhigteen inaa inta tan halkan waxa ku qotumisaan oo haday yar qaldanta aad ku qaylisaan oo hadaa doontaan aad dhirbaxdaan mid kalena aad halkan oo waxaan ku naag yar halkan maxay ahayd
iswalaaqaysa aad maxay ahayd daba orda dee taas waa laga fiican yahay aad markaad guriga ka baxdaan is leedahay shaqadiiba kuugu maqaya dad doonto jidka aad mid waxaan kuuga aad ku aragtay mid yaroo iswalaaqaysa deetana aad ka daba dhareerisa deetana halkaa aad gabadhaadii kaga jeesatayo maxay ahayd dee wax kalaba ku galeen oo markay erey yar ku tidhaahdana aad hawadaa kaga soo guudid taas waa laga fiican yahay in rag waa ismaqlaysaa xabadiinana ku kalsoonaada in leeyahay wixii calafka kuugu talagalay waa meesheeda laakiin waxaa adduunka waxaa ugu fiican qofka xabadiisa iimaansada oo gabadhiisa keliya ta iimaansada taas ilaahayna waxaan ku waxa yarbu kuu barakeeyaa marka isku kalsoonaadan leeyahay lamaano kastoo dunida ku nool kuwii aan haysanin oo maxay ahayd iskaablada rag iyo dumar ilaahay waxaan uga baryayaa wax khayr qaba dhaliilaha iman kara oo badanaa burburiya maxay noqon karaan waxaa weeye dhaliilaha burburiya haddii aan hadda qayb ka mida aan sheegno ilaa inagii baa qoysa inagii baa dhaliilaha iska ilaalina anigu waan ogahay qoys kaleeto wuxuu ku dumi karo cidda qaldanaan karta haddii cid qaldanaanto qofka la rabo inuu saxo qofka mas-uulka ah qofka la rabo inuu samro gabar waxaa weeye waa konton ma samrayso waxaa weeye inta badan markay qayliya buuq soo gasho adigaa la rabaa inaad samirsiisid adigaa la rabaa qoyska inaad isku haysid waxaa weeye wax badan bay ku yacni haysaa subaxi markaad halkaa ka baxdid oo shaqada tagtid waxaa weeye gurigaas oo waxaad usoo noqonaysaa dee sidii waxaa weeye taagan waxaa weeye gurigaa markii waxaa weeye yacni qofka taagaya waa iyada halkaan cunug baa uga dhegan halkaan cunug kalea uga dhegan mid bay jaqsiinaysaa dharkaagii bay mayraysaa way feeraynaysaa adigii bay dhankaa fikiraysaa wallaahi bilaa waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed wax ka qaalisan oo ka qiimo badan oo ka wanaagsan ma jiraan ragow dibindaabiyada ka daayay gabdhaha soomaaliyeed dibindaabiyada iyo dhibka iyo yasitaanka iyo silcinta iyo rafaadka ka daayay koosoo wax adiga dib kuugu soo noqonay adun bay kaa go-an tahay walaashaabay ka go-an tahay hooyadaabay ka go-an tahay waxaa gabadh bili aadan oo walaashaay aa ku dhigtid oo ka jirta marka hablo waa inaga celiyey ragga waan idin idhi saa ula socda ragoo waxaa weeye idinkan waxaa idiin sheegayaa dulqaad sameeya muxuu ahaa reerka isku haya waxaa weeye caqli sameeya waxaa weeye haafka weeye qofka waxaa weeye feertaadii weeye waxaa weeye qofka la rabo inuu madaxa reerka saarto waa adiga ilaahay baa mas-uuliyad ku saaray dee waxaa weeye madaxaas waa inay idin saarnaata waxaa weeye hala ilaaliyo dumarka hala ilaaliyo dumarka waxaan kuuleh hala isku kalsoonaado hala isu dabacsanaado waa idinka qoysaska talooyinka waa inaa maxay hayday waa in la qaato wuu noo soconayaa siiba ragga aad iyo cadaadiska saaraya wuu noo soconayaa barnaamijka waxaa weeye tala celinta qoyska wixii tala qoyska aan ku darsan karno aan ku darsanayno wuu noo soconayaa barnaamijkan waxa weeyaan la talinta qoysaska soomaaliyeed ama tala siinta sidee buu sii jiri karaa qoyskan muxuu ahaa 100 sano deebaan waxaan ku isugu sheegi karnaa ilaan qoysas baynu nahay taladan qoysaskay ku socotaa aad iyo aad siiba nimankay ku socotaa nimanka dumarka waa ku socotaa haween dumarka waa ku socotaa waxa leeyo wax roga waa nimanka ninku hadduu si kasta wax u haleeyo waxa weeye guriga looga dambeeyo hadduu yahay guri qabow isagaas waxa weeye dadaalada qaboojin kara gabadhii markay adiga qabow ka aragto ayadna way qaboobaysaa walaalle inta hadda isu sheegno waxaan halkan aad iyo aad uga salaameynaa Mustafa Saleebaan waa inoo fiidiyowga noo xigo waxaan idin leenahay ha ka daalina subscribe-ka commentiga like-ta share-ta aad baa idin salaameynaa